shirkadda isgaarsiinta Somtel Puntland ayaa magaalada Galdogob ku qabatay barnaamijkeeda mahadsanid macmiil iyadoona shirkadda macaamiisheeda ugu isticmaalka badan guddoonsiisay hadiyado qaali ah. Hadiyadaha munaasabada lagu bixiyay waxaa ka mid ah moobilada iPhone 16ka, moobilada Samsung-ka, aqalad chief ah, internet iyo hadiyado kale oo qaali ah. Munaasabada oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada, madax sare oo ka socotay shirkadda Somtel Puntland, maamulka iyo hawlwadeenada Somtel Galdogob iyo mudanta bulshada magaalada Galdogob. Ujeedada munaasabada ay shirkaddu u qabatay ayaa ahayd in shirkaddu ay wax u celiso macaamiisheeda. waxaad ku jirtaa guuleystayaasha xagga joogtaa xagga joogtaa xagga joogtaa Galdogob. waaw ma sha Allah xagee joogtaa horta aniga aan joogaa qardha joogtaa hawla magacaaga saddexan waa abshkur bashir maxamed